iyadoo guud ahaan dalka uu ka daayay roobab ay dadka iyo dunidaba ku diirsadaan ayaa habeennimadii sabtida ahayd ee 28 bishan Oktoobar 2023 waxaa roobab xoogan ka daay badida deegaanada gobolka Gedo. magaaladan Baardheere ayaa kamid ah meelaha uu sida ba'an ugu fatahay webiga Jubba kaasi oo gabi ahaanba hakiyay isku socodka magaalada sidoo kalena kala xiray daanta galbeed iyo dhanka bari ee magaalada oo ay xiriiriso buundada weyn. daadadka xooggan ee ay soo rogeen roobabkii ka daayay nawaaxiga magaalada Baardheere iyo fatahada webiga uu ka sameeyay gudaha magaalada ayaa waxa ay keentay in guud ahaan magaalada ay biyuhu harqiyaan isla markaana ay waxyeelo geystaan. halkan waa suuq yare oo ah suuq caan kuna yaala daanta galbeed ee Baardheere. gudaha suuqa iyo agagaarkiisa iyo waliba xaafadaha u dhow ayaa ay biyuhu gaareen kana barakaceen dadkii deganaa goobahaasi waxayna u muuqdaan in biyuhu kuwa wali soconaya ay yihiin. ugu horreyn waxaa ka warbixiyay xaaladda magaalada Baardheere ee ku sugan tahay gudoomiyaha guddiga marjaca ururka Rajo ee degmada Baardheere Sharmaake Xasan Yuusuf. degmada Baardheere dadkan idin muuqdana waa dhalinyaradii degmada Baardheere oo kamid ah ururka Rajo degmada Baardheere qaybta waliba warbaahinta. aniguna waxaan ahay Sharmaake Xasan Yuusuf gudoomiyaha guddiga marjaca ee ururka Rajo degmada Baardheere. halkan aan ka cadeynaynaa in degmada Baardheere ay ka jirto fatahaad baahsan taas oo sababtay barakac guryo deegaan iyo guryo ganacsi. meeshan halkan hadda aan taaganahay waa meesha halkan aan taaganahay hadda waxa waaye waa suuq yare waa suuqii oo macnaha ugu fiicnaa waan biyahana saan u dhaxyaalo maanta wax ganacsi oo ka kala socdo ma lahan. marka isku socod warkiisa daa ganacsi warkiisa daa marka waxa xaaladda degmada Baardheere waa xaalad saas ah. marka waxaan u sheegaynaa dawladda state-ka Jubbaland iyo dawladda federaalkaba intaba iyo hay'adaha caalamkaba in ay jirto fatahaad aad u weyn degmada Baardheere. inkasta oo aan sameynay wacyigelin in biyahan ay soo socdaan aan ogeyn oo aan dadka aan ka wacyigelinay ay jirtay oo in badan dhalinyarada degmada haddaan nahay ururka Rajo aan ka shaqeynay oo aan ka wacyigelinay si ay bal ooga hortagaan in ay khasaaro zaid u badan ay ku dhacdo tii oo alxamdulillah rabbil caalamiin oo tii sanadkii hore ay ka yaraatay oo maanta aysan khasaaro zaid aysan jirin oo hanti burbur iyo aysan hadda zaid sidii sanadkii hore aysan jirin. kadib markii aan sameynay wacyigelin tiro badan iyo dadka in ay wacyi ka haysteen in ay biyaha ay iman karaan. marka waxaan cod dheer aan ku sheegaynaa in degmada Baardheere ay u baahan tahay gargaar nooc kastaba ah hadday noqoto dhan walba dhanka arrimaha bulshada dhanka horumarinta iyo in biyahan meesha ay ka soo bilaabanayaan oo ah laga hagaajiyo ugu yaraan ay bal bulshada anagana waxa wacyigelin badan aan ka wadnay waxa noo suurtagashay in aan dadkii aan ka dhaadhicino in aan anagana iska wax ugu qabsan isugu tagno oo bal aan ka dhaadhicino dadkan inay isku tagaan meel fiican way noo maraysaa. gudoomiyaha warbaahinta ururka Rajo ee degmada Baardheere Cabdinuur Cabdi Maxamed oo isna ka hadlay xaaladda ay ku sugan tahay magaalada Baardheere ayaa waxa hadalkiisa kamid ahaa. Rahmaanir Rahiim. awalan magacaygu waa Cabdinuur Cabdi Maxamed kamid ah ururka Rajo ee degmada Baardheere gobolka Gedo. ururkan oo ah urur dhalinyaro kaasoo ummadda deegaanka wacyigelin u sameeya ku saabsan dhan walba. meeshan ku sugannahay waa degmada Baardheere gaar ahaan suuq yare saad arkaysaan saaka ama horeyba loo arkay magaalada Baardheere labada gediba waxaa ka jirta fatahaad aad iyo aad u tiro badan oo dhan walbaba maartay hadii noqoto maxay ahayd beerihii ay noqoto hadii suuqii ay noqoto fatahaad aad iyo aad u baahsan baa ka jirto. fatahaadaas oo ay ka dhalan karaan waxyaabo badan sida caafimaad darrada cunto la'aanta iyo maxay ahayd sidoo kale biyo la'aanta. waayo hadda suuq yaraan joognaa suuq yara saad arkaysaan gabi ahaanba albaabada suuqa ayaa saaka u xiran dadkii waxay ku horan yihiin meel ka baxsan suuqa guud ahaanba maxay ahayd dukaamadii way xiran yihiin saaka
marka haddii sida ayada ay jirto beerihiina saaka maxaa jiray biyihii ay harqiyeen oo gabi ahaanba aan loo dhawaan karin halkaas waxay ka dareemi kartaan in xaalado maxay ahayd bini'aadnimo ay ka dhalan karto ururka rajo 3 maalmood oo u dambeysay waxaan wadnay wacyigelin ku saabsan in dadka maxay ahayd qataraha ayaga ay ka fogaadaan maadaama ay imaan karto qatartan horena naga dignay aan u sheegnay dadka inay webiga agagaaradiisa iyo xaafadaha u dhow inay ka guuraan oo ka qaxaan maadaama qatartan aan horay maxaa jiray waxa weeye loo saadaariyay anagana maxaa jiray dadka uga wacyigelinay taas waan ku guulaysan Ilaahay baa mahadle oo dadkii meesha way ka guureen xaafadihii webiga ku teedsanaa guryahoodina saaka waxa la fadhiyo biyo taas waa dareemi kartaan marka culayskeeda ay leedahay siyaasi lamida quutal daruurigii mar haddii saan oo kale ay noqoto webigina uu fatahaada webiga kaliya kuma ekay dhulkii maxaa jiray dadka wax u soo mari jireen roobab lixaad leh oo aad iyo aad u awood badan baa maxaa jiray baa ka da'ay taas waxay ku tusi kartaa marka dadka hadhow in maxaa jiray aysan jirin transportation hadhow dadka maxaa jiray wixii ay u baahnaan ugu soo gudbi karo wadooyinka waa xiran yihiin webiga waa fatahay oo dalagii beeraha oo dadka u baxsan lahayn oo qudaarta wixii aga soo gooy lahaa sidoo kale waxa weeye fatahaadi baa qaaday sidaas si lamida xarumihii ganacsiga qaybo kamida dadka maxaa jiray ay lahaayeen waxa weeye biyihii baa galay wixii laga badbaadiyay oo maxaa jiray wacyigelintanada intii maxaa jiray aan sameeynay dadkii u hoggaansamay wixii ay badbaadsadeen moogay intii kale maxay ahayd waa xarumahoodii biya galay marka ururka rajo waa urur samafala maxaa jiray oo dhalinyaro kaasoo maxaa jiray leh waxa weeye dhalinyaro aqoon-yahana oo takhasusi u leh sistamyada noocan oo kale marka waxa Ilaahay mahadiisa ku guulaysan in qatar intaan ka badan oo imaan lahayd aan maxaa jiray ka dignay dadkana ka wacyigelinay tii ayadana loo hoggaansamay waxaan dareemayaa intii aan qatarta ayada maxaa jiray aan ka dignaan u hoggaansamay saaka inay yaani ay og yihiin macnaha marqaati u noqdeen wixii aan shalay ka digayni saaka mar aan maxaa jiray aan suuqa hoose dad telefoonada u diray waxa la sheegay in kiilada bariiska saaka ay maraysa $1 iyo bar ay maraysa sokortan $2 ay maraysa waxay ku tursan kartaa in bari intaas ay ka sii badnaan karto marka waxa keenay waxa weeye wadadii oo xirantay oo roob xool lixaad uu ka daay dalagga beeraha oo sidoo kale maxaa jiray biyaha ay qaadeen matooradii saaka xaafadihii maxaa jiray anaga xaafada shakhsiyan anaga ka soo toosay biyaha way ka go'naayeen waxa yeelay waxa matoorkii baa gudihiisa u galay hadii matoorada biyo qaadeen hadii dalagga beeraha sidoo kale maxaa jiray uu biyaha la tageen hadii wadooyinka ay xiran yihiin ummadan waxa ay yaani maxaa jiray ay wajihi karaan waa la dareemi karaa waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo ay qusayso arrintan heer state haday noqoto heer gobol haday noqoto gobolka Gedo haday noqoto heer Jubbaland haday noqoto heer dawlad goboleed haday noqoto nooc walba ha lahaato kaliya maxaa jiray codsiga waa cid kasta oo Soomaaliya oo maxaa jiray oo way qusaysaa heer dawlad federaal haday noqoto jaaliyada haday noqoto hay'adaha maartay samafalka maxaa jiray materialka ka shaqeeya haday noqoto xaaladan waa xaalad bini'aadanimo oo culayskeeda leh wax la dhayarsan karo ma ahan waayo dadka inta ay gargaarka u baahan yihiin ama in la report gareeyo ay u baahan yihiin culaysyada wajahayaan inta ay u baahan yihiin hadaan la report gareynin mar ay wax cuslaadeen macna ma sameynayso waxaan uga macdcelinayaa wacyigelintii ay sameeyeen dadaalka ay muujiyeen iyo sida ay isu xilqaameen ayagoo ah dad dhalinyarada oo iskood isu xilqaamay oo aanan maxaa jiray waxa weeye mushaar ku shaqeynaynin oo aan maxaa jiray waxa weeye yaani in danta maxaa jiray mujtamaca ay ka hormariyeen tooda taas waa uga mahadcelinayaa waana rajeynayaa insha Allah intaas in ka sii badan ay wadi doonaan 100% sidoo kale teamka kamid ururka rajo oo maxay ahayd aan nala joogin ayagana sidoo kale maxaa jiray culayska nala qaybsanaya hari habeen telefoonada noo soo dirahaya maxaa jiray waxa ku nala socdo sidoo kale ayagana waa mahadcelinayaa waxa ka codsanaynaa hay'adaha ay qusayso haday tahay hay'ad dawladeed ha noqoto ama hay'ad maxaa jiray waxaan ku yiri humanitarian oo kale oo gargaar ha noqoto ama dad qurba joog ah maxaa jiray ha noqoto ama dadka deegaanka ha noqdaan in arrintan aan la yarsan karin aadna saaka marqaati u tiin waxa jiro intaasaan ku soo koobaya aad baa u mahadsantiin gudoomiyaha qaybta amniga ururka rajo ee degmada Baardheere Sharmaaka Daahir Aadan soo jeedinaynay warbixin ku saabsan fatahaada webiga Baardheere ka dhacday oo ay geysteen roobabka xooganaa ee dayrta kuwaasi oo mudooyinka u dambeeyay sida xawli ah u daayay isla markaana magaalada Baardheere fatahaad iyo biyo bax aad u badan u geystay hadda meesha aan joogno
ama aan dhex taagannahay saad ka arkaysaanba waa gudaha masaajidka Geed Awoowe oo ka tirsan ama aan iraahdo aad caan uga ah gudaha magaalada Baardheere ama nawaaxiga degmada Baardheere ama guud ahaanba gobolka Gedo masaajid Geed Awoowe saad u jeedaan dhamaantii biyihii baa harqiyay darbiga masaajidka meel kasta waa jabay inuu dumo hadda halis ku yahay sidaas darteed marka biyihii wabiga uu soo fatahay oo beerihii ay soo buux dhaafiyeen gudaha masaajidka u soo gudbeen waliba waa dhaafeen meelaha qaar oo hadda darbiga masaajidka aad u xanibay waa la wareegteen afartii dhinac waa kala wareegteen xaafadey bay hadda harqinayaan ama ay ku fataheen hadda meeshaan dhex taagannahay waa gudaha ama bartamaha masaajid Geed Awoowe waa halkii ay culimada iyo xirta xalaqaadka dikriga ah iyo lagu akhrin jiray duruusta culumta kala duwan diinta lagu akhrin jiray sidaas darteed marka qaybtaas hadda waa u jeedaan waa qaybtii kuleejka oo taxfiidka iyo quraanka quraanka lagu akhrin jiray saad u jeedaanba dhamaanteed biyihii baa la fariistay qaarkood hadda waxay marayaan boodiyaha iyo wixii ka koreeya hadda lagu maraya dhankan aad u jeedaan waa dhankii musqulaha musqul hadda waa badunta sida la sheegayo warbixinada qaar hadda inkastoo aan la tagi karin oo halis ay tahay waa dumeen ama halis bay ku jiraan darbiga masaajidka u jeedaan oo waxaan oo dhan u jeedaan hoos bay biyihii ka soo wada galeen hadday hadda 3 bari hadda kadib la yaalaan wuxuu halis ugu jiraa inuu dumo asaga dhan oo biyaha ay salfadaan marka dhammaan ummadda muslimiinta waxaan ogeysiinaynaa fatahaadda ka dhacday degmada Baardheere waxyeelada ay geysatay intaan inaysan ahayn hadda meesha aan ku jirno si kooban waa gudaha masaajidka magaalada Baardheere markaad dhex tagto ama gudaha magaalada aad tagto waxaad arkaysaa waxaad la yaabto masaajidka hadda bas xitaa ma aha saameynta suuqyada hadda ugu dhow biyaha waxay marayaan inta taqaanee waxay marayaan wadada dheereed ee Garbaare bay la soo galeen biyaha suuqyada waa soo dhaafeen adi ilaa 400 oo tilaabo ama 400 mitir bay gudaha u soo galeen xaafaday u soo galeen suuqyada soo dhaafeen gudaha magaalada marka la tago fatahaad baa ka dhacday ayadana togagi weynaa oo magaalada Axmar jiray waa fataheen kor bay biyo ka keeneen wabigii afarta gees buu u jabay marka waxa isku darsantay togagi weynaa biyo kor ka keenay wabigii afarta gees magaalada labada dhinacba bari iyo galbeedba ugu fatahay iyo roobkii oo kor ka socdo intaas ayada waxay sababtay marka dadka qaar inay barakacaan xaafadoodii ka qaxaan magaalada 30% hadda barakaceedu waa baxa oo waa ka guureen meesha ay deganaayeen 40 hadda ay socotaa waxa ku haraa iska yaraanaya sidaas darteed marka waxaan ogeysiinaynaa dhammaan ummadda muslimiinta ah ama aan oga digaynaa fatahaadaha roobabka bilowday ee dayrta oo sida xawliga u daayo socoteen horena way oga digeen madaxdii ama mas'uuliyiintii hay'adda Sotma oo ah midda u qaabilsan gudaha dalka Soomaaliya ama qaranka u qaabilsan ka hortagga iyo ka digista iyo wax ka qabashada gurmadka loo fidinayo abaaraha markay geystaan ama masiibooyinka dabiiciga oo ay ka mid yihiin fatahaadaha ay roobka geystaan ama duufaanada ay sheegayeen sidaas darteed waxaan dhammaan ummadda muslimiinta ah aan ku boorinaynaa oo oga digaynaa ama aan ogeysiinaynaa inta gobolka Gedo wabiga intuu ka maro nawaaxigiis inta degan oo bulsho ama miyaha joogta ama magaalaha joogtay sidoo kale gobolka shabeelooyinka iyo Hiiraan oo wabiga Shabeelle uu maro ayagana fatahaada baxsan baa hadda laga sheegaya waxaan oga digaynaa si wada jir ah in laga fogaado dhammaan meelaha suurtagalka ay tahay ama macquulka ay tahay in uu ku baaho kuna jabsado wabiga taasi oo keeni karta ama ay ka dhalanayso in fatahaadaasi ay waxyeelad naf iyo maal leh geysato sidaas darteed dhammaan ummadda muslimiinta waxaan ogeysiinaynaa in ay ka fogaadaan ama ay ka digtoonaadaan waxyeelada baahsan Xuseen Kaliil Team Mass Media